فيديوga waxaan kaga hadli doonaa password manager. waxaa jirta inta badan website walba wuxuu u baahan yahay username iyo password lagu galo. marka passwordada inta badan dadku waxay isticmaalaan password yar oo jilicsan oo qofku isleeyahay ma la wada xasuusan kartaa. hadda imka Google garaysid oo internetka ka baadhid password ku jilicsan ee dadku isticmaalaan intan ayaa ugu caansan. hadda imka ku dhufatid kuwan kale boqolka ugu password isticmaal badan yahay since 2022 waad arki doontaa. kuwani waxay dadku u isticmaalaan sababtu waxa weeye waa fudud yahay inuu qofku xasuusto. inta badan website-yadu waaba ku diidayeen passwordada noocan jilicsan ee isticmaashid waxa ku oranayaan strong password isticmaal. haddaba passwordada waxaana lagu taliyaa in account walba password gooniya loo sameeyo. kasoo qaad waxaad leedahay 5 account oo kala duwan ama madaxtooyada waxaad gelaysaa account-ada social media sida Facebook, Twitter, LinkedIn, email-ka shaqada. afarta account kala duwan afar password baad u baahantahay. afarta password ee kala duwan waxaad u baahantahay meel aad ku kaydisid. way xasuusta waxa laga yaabaa in aad fududeysatid oo dabetana hal password aad ka dhigtid. taas maxay keenaysaa haddii hal password la helo oo hal email lagu helo in kuwa kale si yar fudud lagu heli karo iyadoo lagu baarayo. marka password manager baa la isticmaalaa. password manager-ku waa software aad computer ku shubanaysid. qaarkoodna mobile version bay leeyihiin, qaarkoodna waaba cloud based. markaad ku shubatid kasoo qaadkaan isticmaali doono tusaale waa KeePass baa loo yaqaano computerkaad ku shubatay. markaad computer ku shubatid isaga waxaad u baahan tahay passwordka ugu horeeya ee master passwordka inaad xasuusnaatid. kuwa kale isagaad odhanaysaa generate garee password adigu abuur oo dabeetana kaydi. waxaad ku kaydin kartaa computerkaaga file yar oo database ayaad ku haynaysaa computerka. haddii aad ka baqatay computerka inuu kaa crash garoobana waxaad samayn kartaa in fileka aad dhex dhigatid cloud storage-ka sida Dropbox ama Google Drive ama OneDrive oo kale. halkan aad dhex dhigatid dabeetana halkaa uu computerku ka soo akhriyo. tusaalahan maanta waxaan ku haysanaa keepass.org. haddii download aad ku dhufatay haddaad Windows isticmaalaysa haddii operating system ka duwan isticmaalaysa download iskaasan tegi doona isagaan tusaalaha ku bixin doona. KeePass-kaasaa jira password manager fara badan kala jira Dashlane kana kamida waxaa kamida NordPass waxaa kamida mid Kaspersky ka leedahay mid ay Norton leedahay way fara badan yihiin mid walbana wax buu ku wanaagsan yahay wax buu ku xun yahay. kan se isticmaalo waa mid lacag la'aan oo free open source KeePass XC baa loo yaqaanaa. marka Linux hadda isticmaalaysa haddaad Mac isticmaalaysa haddaad Windows isticmaalaysid haddaad Android isticmaalaysid intaba uu leeyahay waxaanu hubin iOS-kii inuu leeyahay yan kale kan idinka baari doona. fine Windows-kaas مثلا waxaad ku dhufanaysaa kana ku qorantahay official package-kaasi install 64-bit-ka Windows 10 iyo 11 marka installer MSI-gaas aad ku dhufan dabeetana installation-kiisa waa Microsoft application next saad u oranaysid but finish aad odhan doontaa dabeetana file-kaas start menu ka soo raadi file noocan ku soo baxay waxa laga yaabaa team-kiisu muuqaal ahaan inuu cadaan u noqdo like this one. where are you the team? you can change to default light kaas ku yimaada by default. waxaan leenahay create new database abuur balanaha cusub. database-kaasi magac buu bixinayaa waa halka passwordada lagu kaydinay passwordskaasan u bixinay waxba ka bedelmayna continue balanaha. database-ka format-kiisa waa KeePass database 4 waana recommended sidaasan isaga ku daynaynaa continue baan odhanayaa. dabeetana master password-ki baan soo sameynaynaa. password-kana loo baahan yahay inaad xasuusnaatid. isaga laftarkiisa waxaad odhan kartaa generate garay abuur samee dee noocaas uu kaaga dhigaya laakiin inaad kan xasuusnaatid waa very difficult. marka password caadi aan qoro password caadi aan qori doonaa kaasaan xasuusnaanayaa for example green buu ka dhigay okay marka not bad. waana smart gareeyaan. passwordkaas ayaa laga rabaa inaan xasuusnaado waa master password marka waxaan leenahay done. haddaba afar website ama 3 website oo tijaaba baan sameyn doonaa. halkan aan imanay meeshan bannaan horta passwordka xagad ku kaydinaysa buu leeyahay temporarily si ku meel gaadha desktop-ka ii soo dhigman leeyahay fileka hadan doona waan qaadi doonaa OneDrive-ka ayaan dhex dhigi marka save ban leeyahay desktop-ka ha yaalo. halkan aan nimi halkan aan right click siinay wax leeyahay new entry ama waxa taabata control N
title waxaan leenahay this is for Facebook. username-kana ka soo qaad waxa weeyaan my Facebook. password-ka waxaan leenahay password-ka waxaan u baahanahay password adag adigu noo sameey calaamadaasaan ku dhufanay generate. password-kaasi 24 khaanad buu ka kooban yahay. waxaan leenahay maykan yara bedel waan bedelkan halkan password quality-ga waxa ku qoran excellent. password-ku ma baahnayd adiguna qaybtid isaga ku haynaya marka apply baan leenahay password-ka ka dhig halkaas uu soo dhigay. halkan waxaan raacinay URL-ki waxa weeyaan https://facebook.com. haddii notice aan qorano iyo haddii wax kale aan raacinayna waan ku dari karnaa. waxaan leenahay intaas oo nagu filan. okay baan leenahay. even xitaa URL-ki adoo halkaa jooga double click siin karta toos wuxuu tagayaa maxay page-ki wuxuu soo furay Facebook-kaasi intuu sii wado aan u tagno another website ase Gmail baan samaysanay mid email-ka lagu talagalay halkaa Gmail baan ku qoray. username-ka waxa weeyaan my Gmail magaca saxda aad ku gashay baad ku qori doontaa. password-kana waxaan leenahay adna password-ka inoo generate garee. marka let's say here password-ka ka baabi hore halkan 24 ka dhig. password-ka wuxuu ka kooban yahay xuruuf waaweyn xuruuf yar tirooyinkii 0 up to 9 iyo non alpha numeric iyo calaamadihii special characters. marka we can check the password مثلا kan kama helin you can regenerate. okay kana leenahay ka ku da apply cagaar buu ku dhigay that means password ku adagay in passwordadii jilicsan hadda isticmaalna sida 1 2 3 4 q w e r aragtaa jiliciisa halkaas ka muuqata. we can do control z ma shaqeynayso. let's do quick generate. whoops halkan waxaan leenahay URL-ku waa https://gmail.com isna okay baan leenahay. labadaasaa nagu filan. kan haddaan double click siino isna waa inuu nageeya page-kii Gmail-ka. you can see here Facebook login halkanna Gmail login. username password-ka saasun baad double click usoo siin doontaa aad soo koobiyeen doontaa. file-kani automatically isaga save ku sameyn haddii wax ka bedeshid automatic save haddii se automatic save uu ku shaqeyn waayo control iyo s baad ku dhufan kartaa. waan iska soo xidhaya. desktop-ka ayuu noo yaalaa. desktop-ka waan hide garay waxa dhex yaala marka desktop-kan ku dhufano file-kan yar haddii qof kaa qaato matalan password-kii master-ka ahaaba loo baahan yahay. haddaan double click siina ama open idhaahdo wuxuuna weydiinayaa password-kii markii hore aan sameynay kii Facebook maaha kii Gmail-kana maaha waa kii markii hore aan abuuraynay aan sameynay kaasaa loo baahan yahay master password-ka loo yaqaano. kaas ayaad adayg baad ka dhigtay dee inay cid heshana uguma talagelin. marka let's try to reopen it unlock idhaahdo dabeetana password-kii password manager-keeni waan halkaa noo soo dhigaa. there is another pin waana ka sidaasaad passwordadii aan ku kaydin karnaa. marka millions of password hadda isticmaalaysid account walbana waxaa lagu talaya in password gooniya loo sameeyo. halkaad ku kaydinaysid waa password manager-ka adigoo isticmaalaya ama free ha noqdo ama paid ha noqdo labadaba option ba waa kuu banaayeen.